السلام عليكم وايد السلام دمانتي waxaan inaan nabad qabtaan maanta waxaan wadaa dardaaran yar amba kelmad yar oo ku socota maamooyinka amba maxay hooyooyinka Soomaaliyeed dhamaantood hadda hadaad noqotay hooyo oo carruurtaada weli yar yar yihiin iyo hadaad tahay hooyo weyn carruurteedu waaweynaadeen intaba wuu kugu socdaa hadalkani haddaba muxuu yahay sidaynu wada ognahay hooyooyinka Soomaalida waxa weeyaan carruurta markay soo yar waaweynaadaan waxba uma sheegaan waxba macnaha wax ma baraan haddaba hooyo waxa lagaaga baahan yahay maadaama uu tahay hooyo carruur haysata oo carruur dhashay carruurtaadiina gabadh iyo wiilba waxay soo gaadheen dhowr iyo toban sano markay soo gaadhaan 13 xataa markay carruur soo gaadhaan inta badan hablo iyo inamaba wax badan way fahamsan yihiin hablahana maxay ahayday xaalado badan baa ku imaado oo inkastoo 13 buu ku gaarin oo qaarkood 9 sanadood ku arkaan ay ku imaadaan ku qaangaadhaan si loo fahmo waxa lagaaga baahan yahay haddaba hooyo markaa tahay macnaha kurayda inaad aad u waanisid way fiican tahay oo maxay ahayday uga digtid oo tiraahdid hooyo iska ilaali hablaha yaryar dhibaato ha gaarsiinin sababtoo ah walaal baa kula dhalatay adiga ma jeceshahay walaashaa in dhibaato lasoo gaarsiiyo in walaashaa maxay ahayday lasoo xumeeyo ma jeclid haddaad macnaha aragtid walaashaa iyo dhibaatadaasi ku dhacday maxaad dareemaysaa inaad inankii fahamsiisid oo dareensiisid gabadhu dhibaato kusoo sameynaayo inay tahay gabadh ayadaba inama la dhalatay hablo la dhalatay dad dhaleen oo dadka naxayaan haddaba maxay ahayday inankaaga waxa lagaaga baahan yahay inaad bartid ood u sheegtid inuuna maxay ahayday hablaha dhibaataynin sida aanu u jeclaynin walaashi dhibaato soo gaadho taa marka laga tago waxaa jirtee kale horta markaan nahay waalid Soomaaliyeed inta badan wiilasha waxaa la yidhaahdaa waa wiil ceeb ma soo hoynaayo dhibaato ma keenaayo waqtigu rabuu bixi karaa waqtigu rabuu soo hoyan karaa waa sax dhibaato iyo ceeb ma soo hoynayd aaminsan tahay laakiin ceeb iyo dhibaato soo hoynaya sababtoo ah markuu asaga gabadh uu soo xumeeyo reera dhaleen asagana walaashii ayuu usoo jiidayaa in la xumeeyo kow gabadha uu berito la dhali doono ayuu usoo jiidayaa in la xumeeyo laba tuu guursan doono ayaa laga jari karaa saddex intaaba way ku dhici kartaa haddaba waxa lagaaga baahan yahay inaad saad gabadha u waaninaysid wax ugu sheegisid aa wiilkana ugu sheegtid si uu u barto ina gabadh haddii dhibaato uu soo gaarsiiyo asagana gabdhihiisa walaashiisu dhalay tuu doontaba ha noqotay laga jari doono okay waxay noqotay gabdhaha waxaa hooyo lagaaga baahan yahay ma aha inaad tirahdid naaya ha bixin naaya halkan ha tegi naaya horta qof markuu u bareero amba uu rabo inuu xumaan sameeyo ma ogtahay inaanu laga celin karin amba aanad maanta dhan saad u ilaalinaysid guriga xataa uu kusoo xareysan karo qofka hadduu xumaan u bareero laakiin ma aha inaad ilmaha cadaadisid gabadhaad cadaadisid oo banaanka u diidid oo macnaha uga dhigtid in hadday banaanka u baxdayna wax xun soo samaynayso adigoo banaankii ka celinaya oo aad adeeg badan tusaynin haddana waxaad u samayn kartaa waa waanin kartaa hooyo is ilaali gabadh baa tahay saa haddaad samaysid dhibaataasaa kugu iman karta saa haddaad yeeshid saas baa kugu dhici karta wixii aad ka celinaysid haddii ay samayso dhibaatada ku imaanaysa inaad u sheegtid oo bartid ayaa ka muhiimsan inaad u sheegtid inay dhibaata ku dhici doonto sababtoo ah dhibaataa kugu dhici doonto haddaad qof ku tiraahdid dhibaatadaasi hadday igu dhacdo maxaa aniga igu imanaya ma fahansano qofkii marka iskama ilaalin karo midda saddexaad ee rabo inaan u sheego waalidiinta Soomaalida waxa weeyaan hooyo gabadhaada u diyaari guurka maalinta ay gabadhaada 15 sano gaadho ambaba adigu nin familigu u keenaan amba iyadu nin keensato intaba xilliga dantaba ha noqoto 15 ilaa wixii kor weyn Soomaalida waa lagu guursadaa haddii saa tahay wax lagaaga baahan yahay inaad gabadhaada guurka bartid kow inaad u sheegtid markay guursato habeenka u horeysa waxyaabaha ku imaan doona dad muslimiin nahay sax laakiin inaad ilmahaaga wax bartid ceeb maaha inaad maxay ahayday aad tafaasiil dheeraada iyo waxaas baa la samayn doona saas baa la yeeli doona inaad tirahdid qasab maaha amba muhiim maaha laakiin waxa muhiim ah in aad bartid waxyaabaha ka hor imaanaya waxyaabaha markay macnaha ay gabadhu aroos tahay waxyaabo looga baahan yahay hadday noqoto xagga nadaafadda hadday noqoto xagga isdiyaarinta wax kastaba
wixii halkaasi ka imaan kara inaad bartid oo waxyaabo fara badan oo diinteena inaga celinaynin amba aan xataa ugu diidanin inaad qofku sheegtid sababtoo ah qofkan imika waa qof weyn waxa uu bareeday oo diyaar tahay inuu guursato ma aha inaad ilmo yar ka soo qaadid oo wax badan ka qarinaysid midda kale waxa weeyaan markay ilmaha ay gabadhaasi dhasho amba maxay ahayd waqtiga ay 9 bilood ay gaadho ilma haday uur yeelato waxyaabaha iska ilaalinayso waxyaabaha ay sameynayso 9 bilood markii gaadho soo isku diyaarinayso iskugu diyaarinayso umusheeda ma aha inaad gabadha intaad la soo carto soo kaxaysid guriga keensatid oo tiraahdid anaa ku umul saarayo maanta dhan ilmihii uu haysido maanta dhan dharkii u dhaqadno saas maaha wasax waad keeni kartaa hadday cid caawisa haysanin haddii la qalay oo kale waad keeni kartaa laakiin waxa ka wanaagsan inay gurigeeda joogto maalin iyo haddayna qalnayn ilaa 3-4 cisho ugu horeysa haddii la caawiyo oo qof caawiya aad heshid way ka badan tahay hadday qalan tahay ilaa 7-8 cisho 9 cisho ugu horeysa oo qodbaha laga furayo bay u baahan tahay in la caawiyo inta marka laga yimaado waxa lagaga baahan kale inaad bartid gabadhaada in family plan la sameeyo ma aha in ayadoona la ogeey samayso qasab maaha laakiin ninkeeda kala hadli kartaa waxbay wada fahansiin karaan marka waxa lagaga baahan yahay inaad gabadhaada nolosha guurka aad u diyaarisid waxyaabo fara badan aad u diyaarisid waxa lagaga baahan yahay inaad gabadhaada bartid hadday dhibaato qabsato amba dhibaato ku jirto inaanay aamusin oo qarsanin oo maxay ahayd ay soo sheegto ay soo bandhigto adiga kuu sheegi karto qof kale u sheegi karto inay maxay ahayd ninkeeda ay hadii ay wax ay aana macnaha raali ka hayn uu sameeyo kale inay iskala hadli karto oran karto waxaasi macnaha ima qabtaan igada marka waxa lagaga baahan yahay inaad gabadhaada u diyaarisid maalin kasta waxaan aragnaa hablo amba gabdho yar yar oo cabanaya oo ka ooyaya maxay ahayd social media meel kasta waxa noqoto qisooyinka marka inta badan dhageysatid waxaad arkaysaa maan aqoonin anigu guur wuxuu ahaa markii la guuriyay wax iga macnaha iga horeeyay iyo guur nolosha guriga iga sugaysa ma fahansanin waxaas oo dhan baa imaanaysa